السلام عليكم مساء أنتم كوحنا برتين يوتيوب كتلجرام وأنا شفيق داوود ما تعرف الخير أنا قولي أسبوعي هذا تودن بواحد فيديو كمان صوت يعرن بس قولي وحول بوك سابسن تريد أي دقيقة يصير كل حين إلا بدأ جاي سيجنال كيسبو تلجرام كاي كل بدأ جاي قولي أسبوع أنا تصور محا معقولة قولي حاجة سنة ديلية سلا هرقو شيء ومركا لاجان لاس جرينيسي بحال جيستا تام فريميد واوين si aa u ogaatid lacagta jihada ay aadayso kadib taamada yaryarna waxay kaa caawinayaan in suuqa entry aad ka raadsatid marka gold hadda markaad dhigi timaadid oo kaleeto gold waxaa arkaysaa in maxaan lahaa uu kusoo laabtay double top markaad fiiriso sidoo kaleetona uu jibiyey oo buubbaa ku sameeyey markaad taamada yaryar aad geysid oo kor ka soo aaday goldi hadeertaa markuu meeshaan marayay diro trade ID ahaan waa idin kula wadaagabo oo hadda markaa kala jirno kala tusaale ahaan oo kale goldi markuu meeshaan marayay waxaa idin dhahay goldi sell waaye ilaa iyo wuxuu gaarayaa 1689 ayaa laga soo celinayaa ayaa dhahay markaas goldina inta ayuu marayay uu soo daatay inta ayuu imaaday waa in la soo celiyay ilaa iyo waxaa ka faa'iideysanay 1745 oo trade ID aan idin la wadaagay waa kanaabo markaa si fiican u fiirisid waa kana meesha uu marayo goldi marka waxaa idin dhahay goldi ilaa iyo wuxuu gaarayaa 1680 markuu gaaro waa la soo celinayaa idin dhahay oo buy waay sidoo kale signalkiisana waa idin la wadaagay oo gold hadda wuxuu marayaa markaa si fiican u fiirisid gold hadda wuxuu marayaabo maxaan lahaa areadan ayuu marayaabo hadda jaadkiisa markaasi trade idea markaa si fiican u fiirisid waa kaabo waxaa idin dhahay markuu soo jibiyey bartaas markuu cuskado ayuu kor haddana sii aaday hadda meeshii ayuu marayaa gold markaad fiiriso waa kana areadii ayuu marayaa marka sidoo kaleeto sababta aan u dhahay areadan waa laga celinayaa goldi ayaan rabaa inaan idin la wadaago si aad wax badan uga faa'iideysatid goldi waxaad arkaysaa markaa hadda joogtid time frameka daily oo kaleeto gold waxaa arkaysaa marka mar walba waxaa fiirinaysaa lacag aan laasgaraynaysid liftiga ayaa fiirinaysaa gold hadda markuu meeshaan maraayo sababta inta loogu soo celiyey waa inaa ogaataa mar walba qiimo haddii meesha laga celiyey sababta looga celiyo waa inaad fahamsan tahay hadda sababta inta looga celiyey arkaysaa waa kana liftiga markaa fiirisid gold waxaa arkaysaa areadan in uu ku laalaabtay oo correction badan uu sameeyey ku laalaabtay kadib marka uu jibiyeyna waa aragtaa ilaa iyo kor ayuu tago oo 2000 iyo maxaa lahaa 74 ayuu tago 75 marka gold markuu inta ku laalaabtay markuu jibiyey kor ayuu aaday marka sababta inta looga celiyey waxaad ku ogaanaysaa hadda markaad calaameysatid waa kana tusaale ahaan oo kale markaad dhigatid resistance oo kale markaad saartid waa kana gold oo meeshii laga celiyey markaad fiirisid liftig waa kana oo gold waxaa arkaysaa in mar laga celiyey sidoo kaleeto marka laga celiyey mar saddexaad uu ugu soo dhawaaday laga celiyey kadib markii afraadna waa kana uu soo laabtay uu jibiyey goldina waxaa idin dhahaa meesha uu ku laalaabto waa uu jibiyey sidoo kaleetona hoos markaad inta in laga celinayana waxaad ku fahmaysaa ayadana hadeertaa markaa calaameysatid markaa sidaasoo kale u calaameysatid waa kana in oo goldi meeshaan uu ku laalaabtay waxaa calaameysanaysaa meeshaan uu ebel uu ka laabtay kadib markaa liftigan aad fiirisid waa kana goldi hadda resistancegaada aad dhigatay gold waa kana oo resistancegaada muusan jibinin mar walba oo resistancegaada imaado fiiri rejection ayaa la siinaya waa la celinaa bodigii fiiri resistancega meesha aad dhigatay korkeeda ayuu ku xirmaa bodigii waa kana mar kale ayuu haddana rejection ayaa la siiyey markan waa kana marka sidoo kale goldi markuu aan dhahay inta markuu imaado waa la celinayaa hadda markaa geysid 4 hour oo kaleeto ayaa si fiican u fahmaysaa 4 hour hadda waa kana markaa imaadid hadeertaa markaad jirno kaleeto waxaad ku fahmaysaa in xitaa hadeertaa tusaale ahaan oo kale dhigoo kale markaad joogno waa kana
mar walbo wax goal analyze gareynaysid waxa uu hore u sameeyey ayaa la fiiriyaa si aa u ogaato waxa uu sameynayo. marka hadda waa kana isla markii waa uu soo daatay meeshii ayuu yimaad oo ku dhaha waa laga celinaya. markii aad yartaa 4 hour ka aad yimaadid oo kaleeto weli waxaa suganaysaa confirmation. waa kana tusaale ahaan oo kale hadda waxa uu sameeyey waa kana meesha calaamaysatay kadib waa kana waa uu yimaad marka waxaa suganaysaa confirmation inuu sameeyo candle 4 hour oo maxaa lahaa engulfing. waa kana waa uu sameeyo oo buy kadib candlekaas labaad ayaa qaadanaysaa stop loss kaadana meeshaas ayaa dhiganaysaa. golden waa aragtaa ilaa iyo kor ayuu aaday oo waa ka faa'iideysana ilaa iyo 1755 ayaa gold uga haray. sidoo kale gold waxaa arkaysaa in meeshii uu jibiyey ayaad arkaysaa oo maxaa lahaa meeshii ku calaamaysnayd oo double topkii waa uu jibiyey. markii taamid yar aagay sidoo kaleetan si fiican u fahmaysaa oo pullback ayuu ku sameeyey. sidoo kaleetana rejection waa uu sameeyey. hadda markii kii oo kale aad joogtid dheego kaleeto waa kana tusaale ahaan oo kale marka hadda soo dhaweeyo waa kana rejectionka uu sameeyey. hadda markaa cabiratid boodiga candleka iyo waxaa cabiranaysaa wiigii boodiga ayaa cabiranaysaa. wiigii boodiga oo kale markaad cabiratid horizonkaas dhan markaa cabiratid wiigii boodiga gold waxaa arkaysaa waa kana marka uu jibinayo fiiri marka uu jibinayo wuxuu ku jibiyey candle pure oo buy ayuu ku jibiyey. waa kana candlekani hadduu sell gold ahaa lahaa wuxuu sameyn lahaa candlekani markuu xag ku dhaco rejection ayuu soo qaadan lahaa. rejection intuu soo qaato kadib hoos ayuu gold ugu daadan lahaa. balse laakiinse markuwaad qiimaha wuxu uu ku jibiyey ayaa fiirinaysa. waa kana oo candle wuxu uu buy ayuu ku jibiyey. sell hadduu ahaa lahaa kale candlekan camal ayuu sameyn lahaa rejectionka ama kan oo kaleeto ayuu sameyn lahaa kadib hoos ayuu aadi lahaa. midaas ayaa kuu cadeynaysa inuu gold buy yahay. sidoo kale mida labaad oo kuu cadeynaysa waa kana candlekan labaad uu sameeyey oo sellka ah fiiri uu ku xirmay rejection ayuu soo qaatay. waa ujeedaa rejection ayuu noqday. kadibna waa kana waxyar ayuu inta ku laalaabtay taamid yar markaa geysid waa kana kor ayuu aaday goldi kor ayuu aaday. sidoo kaleeto markaad maxaa lahaa goldi hadeertaa maxaa macquul marka hadeertaa intaas kasoo gudubno goldi hadda maxaa macquul goldi hadda markaa fiirisid meesha uu maraayo waxaa arkaysaa markaa liftiga fiirisid in ay tahay meel buy waa kana markaa inta fiirisid oo kaleeto waxaa arkaysaa in ay meel buy ay tahay kadib waa calaamaysanaysaa. waxaa kugu sharxaa waxay tahay in aad maxaa lahaa wax badan aad ka faa'iideysatid wayna ku anfacayaan maxaa lahaa mar walba oo goldi analyze gareynaysid gold waxyaabaha uu sameeyo haddaad fahantid waxa waaye maxaa lahaa gold wuu kuu fududaanayaa. marka hadda markaa cabiratid maxaa lahaa markaa cabiratid meeshii oo hadda oo maraayo goldi waxaa arkaysaa inay tahay meel support sidoo kaleetana oo rejection hadda sii qaadanayo. goldi sidoo kaleeto waxaa arkaysaa waa kana meeshaan hadda fiiri liftigan oo kale marka hadda waa kana marka uu jibi waa ka aad haddana waa kana boodigi markaa calaamaysto waa kana rejection ayuu hadda sii qaadanayaa candlekaasi oo hadda dheega oo socdo. sidoo markaa sidaas u calaamaysatid sidoo kale boodigana waa calaamaysan kartaa haddaa rabto oo maxaa lahaa kii ayaa saaranaysaa horizontal waxaa imaanaysaa 4 hour. haddeertaan time frameka daily oo kale waxaa ku ogaanay goldi inuu still buy yahay inuu still buy yahay haddana waxaa kusii fahmaysaa tusaale ahaan candleska uu ku socday marka aad fiirisid. hadda waa kana weli goldi waa buy candlekana hadda wuxuu ku sheegaa goldi inuu still buy yahay. kan hadda soo laabtay iska daa midka hadda soo laabtay waa pullback waa wax uu sameynayo oo taamida yar markaa sii geysid oo kaleeto waad fahmaysaa waa pullback waxaan oo hadda sameynaya. hadda markii xitaa sii geys 15 minute meelahaas oo kaleeto waxay noqonaysaa maxaa lahaa hadeertaa candleska markaa range camal ayuu noqonayaa oo aageenayna oo fiirinaynaa. marka candlekani hadda u dambeeyey uu ku xirmay gold waxaa arkaysaa inuu buy buuxaya weli still uu buy yahay. tusaale ahaan oo kale hadda waa kana markaan tusaayo kaleeto
markaan camal hadda markaan maxaa waa kana markaan camal tusaale ahaan oo kale hadda markaan waa kana candlekan markaad fiirisid gold wuxuu ku jibiyey neckline-kii oo double bottom-ka wuxuu ku jibiyey candle buuxo oo buy ayuu ku jibiyey balse laakiinse muxuu sameeyey candleskan kale sell booja ayuu sameeyey weliba kana rejection ayuu sii noqday xitaa kadibna kor ayuu soo aaday haddana waa sidii oo kaleeto oo goldi maxaa la lahaa still waa buy oo hadda candlekaasi ayaa ka fahmaysaa oo daily kadib markaa 4 hour-ka aad timaadid waxaan waxaa kugu calaamadeynaya in aad wax badan fahamtid marka aad 4 hour-ka gold waxaa arkaysaa markaa waxaas ka qaado gold waxaa arkaysaa maxaa la uptrend ayuu sameeyey oo had yartaa markaa sidaas u cabiratid trend line-kaada si isla siman ayaa u saaraysaa goldi inuu buy yahay waxaa hadda dailyga adigu oo maxaa la og inuu goldi buy yahay haddana 4 hour-ka markaad timaadid waa isku direction mararka qaar oo kale waxaa jiro wax maxaa la isku direction iyo kala maxaa la kala direction ay mararka qaar noqdaan tusaale ahaan oo kale daily oo kale markaad fiirisid waa buy laakiinse markaa 4 hour-ka timaadid oo kale sell ayuu ku tusayaa qiimaha markaas waxaa waa kala direction oo way kala duwan yihiin tusaale ahaan oo kale daily oo kale trend line down trend ayaa ku saarmayo 4 hour kale markaad timaadid trend line up trend ayaa ku saarmayo markaas waa trend line iska xitaa ay kala duwan yihiin waxaa kala direction balse laakiinse markay yihiin waa markaan oo kale hadda markii daily aad timaadid still goldi buy ayuu sheegaya oo inuu buy sheegay maxaa ku fahmaa hadda waxaa aragtay trend line-kaaga markaas artid oo dhahay kuwa xaggaa laga celiya trend line-kaaga inuu kuu saxayaan waxaa ku ogaanaysaa waa in laba meel laga celiyaa aysan ku jirin meesha qiimaha hadda marayo waa kaan labada markaan wax yar ayuu kor aaday balse laakiinse uu kusoo laabtay labo markii saddexaad oo hadda imaadeen wax kana oo uu cugsaday weliba rejection ayuu qaatay sidoo kaleeto meeshaan oo rejectionka ka qaatana had yartaan oo trend line-ka ku beegmatane waa dailyga meeshii maxaa lahaa oo supportka ahayd waa kana hadda markaa calaamadeeno waa kana supportka ujeedaa markaad calaamadeysid oo 4 hour-ka aad timaadid had yartaa laba confirmation ba waa haysataa oo kow dhaygii supportkii iyo waxaad kusoo beegma trend line-kii oo qiimihii laga celinaya support oo kaleeto waa asne like support camal oo isticmaali kartaa marka in hadda labadii meel oo kusoo beegmo goldi oo laga celiyo rejection oo hadda ka qaatay oo goldi had yartaa candlekaani 4 hour-ka hadda bilaabanayo wuxuu sameynayaa confirmation buy oo ayuu sameynayaa kadib kor ayuu aadaa goldi ilaa iyo maxaa lahaa wuxuu gaarayaa 1800 iyo 11 oo kaleeto ilaa 1810 kadib goldi leveliska uu sii gaari kareetana markaad aad fiirisid waa 1850 oo kaleeto ilaa iyo 1870 goldi hadda markaad fiirisid waxaa arkaysaa in trend line-kaagii hadda uu maray oo rejection la siiyey sidoo kale waxaa sii geysanaysaa time frame-ka 1 hour-ka ayaa sii geysanaysaa si aad usii ogaado goldi still wili waxaa arkaysaa in uu buy balse laakiinse entry ayaad rabtaa inaad ka qaadatid marka waxaa sii geysanaysaa 1 hour 1 hour-ka markaad geysid waa iska fogeynaysaa goldi si aad u aragtid 1 hour-ka markaad geysid waxaad taabanaysaa markaad iska fogeynaysid shaashada control minus ayaa taabanaysaa sidoo kale markaad soo dhaweynaysidna control plus ayaa taabanaysaa marka waxay kaa saacidaysaa in maxaa lahaa structure-ka dhammaan aad wada aragtid markii aad maxaa lahaa 1 hour-ka timaadid trend line-kaagina uu kuu saaran yahay gold waxaa kusii ogaanaysaa in uu buy yahay waxaa sameynaysaa trend line kore ayaa saaranaysaa oo trend line-ka kore sidee ayaa u saaranaya goldi trend line koreeto uu saarmay waa kana xagga ayaad ka bilaabaysaa kadib dadka qaar oo kaleeto sidaas ayay u saaraan balse laakiin sidaas haddaa u saarto waa qalad oo gold hadda waxaa leedahay markaas sidaas oo kale mar walbo aad trend line saaraysid trend line wuxuu kaa saacidaa inaad entry aad heshid waa like support and resistance camal aad u isticmaalaysa
hadda haddii midkaas trendlineka kore aad sidaas u saaro hadda waxaa ogaanayaa qiimahan waxaa leedahay buy waa ilaa iyo meeshaas ayuu gaarayaa trendlinekaas base laakiinse trendlineka sida saxan waxay tahay had tusaalahaan oo kale markaa xagga ka bilaabo trendlinkeyga meesha labaad uu laga celiya ayaa saaraysa meeshan waa ujeedaabo qiimaha marka trendlineka meesha oo hadda marayo si aa u ogaad fiir markaa meeshan labaad aad saaro si aa hadda kuu tuso markaa meeshan labaad saaro marka haddeerta waa kana trendlinekaas labaad aa saar hadda golli waxaa ogaanayaa markii haddeertan waa kana golli hadda waxaa ogaanaysaa fiir in la jibiyey trendlinkaaga waa kana markii koowaad uu jibiyey waa kana weliba trade adiyan waa soo diray oo markaan uu jibiyey golli uu kusoo laabtay buy waayo ayadaan idin dhahay ilaa iyo xagga waa ka faa'iideysanabo sidoo kale hadda waa kana mar kale ayuu kusoo laabtay sidoo kale markaan uu kusoo laabtay hadda waxaa arkaysaa fiiri trendlinekaagii ayuu kusoo laabtay oo kore uu jibiyey waxaa arkaysaa kow haddeertan 3 confirmation aad sii haysataa oo trendlinkii 4 hourka ay ka saarto uptrendka uu ku sheega golli in uu buy yahay sidoo kale dailygii supportkii aad saarato golli uu ku cadeynayo inuu buy yahay iyo sidoo kale hadda 1 hourka markaad sidaas u saaratid trendlinkaaga oo golli maxaa lahaa oo uu jibiyo bullback ku sameeyay sidoo kale confirmation xitaa hadda waa uu sameeyay oo buy laga dhihi karo 1 hourka waa kana uu markuu taabtay trendlinkeygii rejection ayuu qaatay body trendlineka korkiisa ayuu ku xirmaday candle buy ayuu sameeyay oo hadda candleskan sameynayo kale buy waa usii qaadan kartaa adoo intaas confirmation haysatid waxaa la haddeertaani waxaad sii sameynaysaa sidoo kale golli meesha uu gaari karo waa ogaa kartaa oo maxaa lahaa haddeertaan sidaa kuu sheegabo golli tusaalahaan oo kale waa kasii faa'iideysan kartaa oo markuu hadda eriyadan oo kaleeto waa maxaa lahaa waa markuu jibiyo kale buy waa usii qaadan kartaa eriyadaas oo kale markuu jibiyo buy waa usii qaadan kartaa golli ilaa wuxuu gaaraa 1810 isbuuc haddeertaan xitaa waan idiin sheegay balse laakiinse golli isbuuc hadda dhaqaaq oo weyn ee muusan sameynin oo hal jiha ah wuxuu sameynayay laalaabasho ayuu sameynaya oo hadda dheygo kale markaad joogtid waa kuu sheegabo dheygo kale hadda markaad fiirisid hadda markaa waxaana kaaga qaado waa kana supportkan uu jibiyey golli marka mar walba hadduu lacagkan wuxuu ugu fiican yahay hadduu support uu jibiyo ama trendline hadduu jibiyo bullback uu ku sameynaya qasab waa ama markaasi trendline markuu jibiyo haddaato oo tusaalahaan oo kale sel ayuu jibiyey markuu daato kadib uu soo laabanaya oo bullback inuu ku sameeyo qasab waa hadda tusaalahaan oo kale waa kana supportkan ayuu jibiyey oo kor ayuu aaday marka hadda bullback ayuu ku sameeyey oo dailiga bullback dailiga ayuu ku sameeyey marka hadda imaadid oo kaleeto 1 hourka waa kana oo laalaabashadaas ayuu sameynaya golli correctionkaas ayuu ku jiray marka golli haddeertaan waa buy oo waxaa ku dhahay ilaa 1810 oo kale golli waa uu gaarayaa sidoo kaleeto inuu sii gaaro waa macquul 1850 oo kale balse laakiinse ilaa meeshaas waa uu gaarayaa golli 1810 marka 1 hourka si fiican haddan u timaadid maxaa lahaa waxaa sii geysanaysaa 15 minute si aa golli intri dhow aa uga heshid 15 minute markaad timaadid waxyaabahan haddeertaan aa ka qaado golli waxaa arkaysaa in uu ku jiray rangin oo maxaa lahaa laalaabasho ayuu ku jiray waa kana haddeertaan markaa cabiratid oo kale markaad cabiratid sidoo kaleetana inta waa kana golli rangin ayuu ku jira oo rangin wuxuu ugu jira waa kana kuwa xagga ayuu kusoo dhacay inta markuu ku dhacay inta ayuu ku laalaabtay inta markuu ku laalaabtay haddana kor ayuu soo aaday kor markuu soo aaday wuxuu usoo dhawaaday resistancegeedi waa laga soo celiyey markii dambe waa uu jibiyey oo waxaa lahaa meeshaanu ku laalaabtay inuu kor sii aaday ayaa la rabay balse laakiin fake break out ayay noqotay waa uu soo daatay markuu soo daatay trendline waa kana resistancegeygii calaameystay ayuu haddana bullback ku sameeyey waa kana bullback marka uu ku sameeyey fake break out intaas noqotay waa uu soo jibiyey bullback uu ku sameeyey
pullback marka uu ku sameeyey waa kana waa uu soo daatay haddana mar kale ayuu ku laabtay fake break oo ayay noqotay oo waa uu jibiyey waa uu soo daatay inta ayuu imaaday oo hadda goldhi inta waa kana weliba rejection ayuu ka qaatay 30 minutes oo kale markaa geesay oo kale si fiican fahmaysaa waa kana rejection ayuu noqday oo candle buy ayuu sameeyey sidoo kale waa kana candle is buy ayuu sii sameeyey goldhi hadda marka 15 minutes 30 minutes oo kale waa kasii faa'iideysan karta oo qaabkay ugu faa'iideysanay gold hadda waxaa sameynaysaa selkan hadda soo daatoo kale xitaa waxaa ogaanaysaa in gold areada areada hadda markaa fiirisid waa kana waa meel oo goldi uu ku laalaabanayo meeshii ayuu pullback ku sameeyey hadda markaa calaameysatid oo kaleeto waa kana fiiri meeshaas markaa resistance aa saaro kaleeto waa kana waa arkaysaaba oo gold hadda waa kana markuu rejection soo qaatay waa kana pullback camal ayuu ku sameeyey haddeerta waa kana candles rejection ayuu sameynay hadda marka waxaa ugu sii faa'iideysanaysaa waxaa sameynaysaa meeshaan hadda waxaa arkaysaa inay tahay meel support ayaa arkaysaa inay tahay marka meeshaas ayaa calaamaysanaysaa markaa meeshaas calaameysatid waxaa sameynaysaa 15 minutes ayaa geysanaysaa ama 30 minutes adoo joogo hadda marka waxaa sugayaa goldi in uu sameeyo oo meeshani uu soo jibiyo marka uu soo jibiyo oo pullback ku sameeyo kadib buy ayaa u qaadanaysaa ilaa iyo areadaas waa ka faa'iideysan kartaa waa ilaa 100 bibis camal waa ku dhawaad 100 something waa kana waa 100 iyo maxaan lahaa 10 bibis waago marka ilaa iyo areadaas waa ka faa'iideysan kartaa gold scalping ahaan oo kale waa uga faa'iideysan kartaa ilaa areada marka waxaa sugaysaa adaa deertaan in uu soo jebiyo supportkan waa kana supportkaa kuu sheegayo waa kana calaamaysanaysa qaabkaana waa ugu faa'iideysan kartaa gold waxaa jira qaabo badan oo looga faa'iideysto waa kana ujeedaa inuu soo jebiyo oo pullback ku sameeyo kadib kor ayaa u raacaysaa oo buy ayaa u raacaysaa marka goldi isbuucan sidaas ayaa macquul ah oo in uu buy aado ayaa la rajeynayaa weliba anoo ku cadeemo badan oo goldi oo buy ku aadi karo ilaa iyo maxaan lahaa 1810 oo kale areas uu gaari karo ilaa iyo 1850 1850 oo kale inay waqti ku qaadataa macquul laakiinse ilaa iyo 1810 oo kale waa uu gaarayaa markuu meeshaas gaaro kale inuu macquul ah goldi marka gold isbuucan waa buy sidoo kale insha Allah signalkiisana waa soo diri doonaa waana mahadsantihiin